xaggani waa magaalada Kerala ee dalka Hindiya waxaana meer keliya isqabsaday onkodka iyo hilaaca waxaana maashay roob mahigaana waxaase la yaab ku noqotay dadkii inay ku soo baraarugaan roob dhiiga oo biyo dhigay magaalada gudaheeda iyo daafeeda. haddaba saynis yahanada dalka Hindiya oo arrinkan baaritaan ku sameeyey ayaa nuqullo ka mid ah dhiiga moonad ahaan waxay ugu direen shaybaadhada Maraykanka iyo Yurub. haddaba arrinka xiisaha leh ayaa ahayd kadib markii shaybaadhada dunidu xaqiijiyeen in dhiiga roobkani uu ahaa ku bini'aadanka hawsha kale eg laakiinse ka duwan borotiin aan dunida horey loogu aragu ka koobnaa. waxaad horey u maqli jirteen roobab dhagax wata, haddase waxaa dunida ka bilaabmay roobab caaro wata oo samada ka soo daadanaya. waxaa kale oo bilaabmay calaamado aan horey loo arki jirin iyo roobab iyagoo oraah wata oo ka da-ay meelo badan oo dunida ka mida. waxaase arrinka ugu layaabka badani ay ahayd in hadda ay bilaabmeen roobab kalluun wata oo ka da-ay dunida meelo ka mid ah sida Australia iyo Maraykanka. waxaana arrinkani ay calaamad u tahay jawaabna ay u tahay kuwa iyagu beeniya jiritaanka Ilaahay oo Ilaahay uu ku tasayo calaamadihiisa muuqda.